السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ترسيقا كان عصب يا برنامج كان oo ku saabsan tallaabooyinka la qaadi karo oo lagaga hortegi karo duulaanka Itoobiya oo ah run ahaantii farsamooyin iska caabin ayna yihiin arrimo lama huraan ah in lagu dhaqmo oo la dardargeliyo miisaanka siyaasadeed run ahaantii bishii January ee tagtay la soo gaadho bisha tan iyada ah ee February aan ku sugannahay waxaad moodaa inuu janjeero dhanka iska caabinta marka loo fiirsado Soomaaliya balse arrinkaas isaga ah macnihii dowladda Itoobiya ka gashay xilligaas isaga ay tilmaaman gaabis arrinkaasna uu keenay ama uu ugu wacan yahay iyadoo diblomaasiyadda Soomaalidu ay ka faa'iiday run ahaantii khaladaadkii taliska Addis Ababa taliskaasoo aanay jirin wuxuu macnihii siyaasad ahaan kaga hortegi karo marxaladan ama marka laga hadlo kiiskan isaga ee labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya isku hayaan oo ah kuna salaysan faragelinta Addis Ababa ee ku aadan dalka Soomaaliya mowqifkooda siyaasadeed guud ahaan uu yahay mowqif jilicsan oo dhiciso daciif mowqifka Soomaaliyeed siyaasadeed iyo diblomaasiyadeedna uu yahay mid aad u sareeya iyadoo ay ugu wacan tahay inay Soomaaliya ku taagan tahay kaalin xaq ah kana duuleyso dano xaqa oo legasiyo sharciyeysa saas awgeed arrimahaas iyo muuqaalkaasu wuxuu keenay oo horseeday oo sababay in laga guuleysto diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan ilaa iyo hadda dowladda Itoobiya balse dowladdaas iyada ah waa dowlad ku xeel dheer cadowtinimada Soomaalida iyo duulaanka Soomaalida ayna ka go'an tahay inay Soomaaliya wax kasta way awoodi karaan siyaasad dhaqaale cudud ciidan gaar ahaan inay adeegsadaan saas awgeedna ee lama huraan tahay gaar ahaan mar haddii awoodda ciidan ee Soomaaliyeed ay jilicsan tahay inay Soomaalidu aad u dardargeliso arrimaha siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed iyo arrimaha logistiga ee arrimaha dhaqaalaha ku xidhan tusaale hawada Soomaaliya oo ah mareenka koowaad ee dowladda Itoobiya iyo gaadiidka Itoobiya oo uu yahay wadada ee uga gudbaan ama uga soo gudbaan markay caalamka dibadda u sii gudbayaan iyo markay ka imanayaanba oo diyaaradaha Itoobiya u socda ama diyaaradaha gaar ahaan ee Itoobiya leedahay ay isticmaalaan hawada Soomaalida kuwaasoo badanaa u kala jeeda qaaradaha Yurub iyo Afrikada koonfureed ee bari iyo Asia iyo gaar ahaan Middle East dhammaan dayuuradahaasu waxay soo maraan Soomaaliya halkaa ka maraan intooda badan halkaas badda cas bay uga sii gudbaan ama gacanka cadmeed qaarna
gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya ayay dhankaas u jeexaan iyo badweynta Hindiya iyo Asia. run ahaantii arrinkaas isaga wuxuu muujinayaa baahida weyn ee Itoobiya u qabto Soomaaliya. saas awgeed arrinkaas isaga waa in la dardargeliyaa markastoo laga arko wejigabax iyo afgarasho la'aan iyo xadgudub ka soo jeeda Addis Ababa. arrinkaasu masaalixda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo ganacsi iyo gaadiid dadku ku kala gooshaan macnihii gabaabsi ka dhigi lahaa oo arrinku gaadhi lahaa shutdown inuu dalkaasu ka xidhmo dibad hadday noqoto bad macnihii aan ka wado aanay lahayn access badeed marka laga yimaado xeebaha Soomaaliya ay ka isticmaalaan iyo Jabuuti oo ah sida dekedda Berbera iyo dekedda Jabuuti. in arrinka intaasna u raaca uu yahay mareenka hawada oo kaasna dhanka gaadiidka Itoobiya uu isticmaalo hadday ganacsi noqon lahayd iyo haddii ay noqon lahayd in dad macnihii ay adeegsadaan. arrinkaasu waa arrin lama huraana oo u baahan in la dardargeliyo. arrinka labaad oo arrinka ganacsiga Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeya oo run ahaantii u janjeera dhanka Itoobiya oo mar walbana khasaare mug leh inagu hayay oo in lacag mug leh maalin kasta bil kasta sanad kasta ay naga gasho Itoobiya beddelka laynagu soo bedelaana uu yahay sun dadka Soomaaliyeed caafimaad ahaan iyo moraal ahaan iyo dhan kastaba ka burburinaysa oo geedka jaadka. arrinkaasuna uu hadda dheer yahay khamrada iyo mukhadaraadka sida xashiishada maandooriyaasha oo Itoobiya laynooga soo waarido iyadoo ay xuduuddeenna dhuleed run ahaantii furanta. arrinkaas gaar ahaan jaadka waa hub run ahaantii lagaga hortagi karo Itoobiya ayna tahay lama huraan arrinkaas isaga in la adeegsado laga hor istaago gaadiidka Itoobiya ka imanaya ee soo qaadaya jaadkaas isaga oo hawada laga xirto. arrinkaasoo run ahaantii Soomaaliyana u biirin lahaa dhaqaale badan oo khasaare markasta kaga baxa Itoobiyana lacagtaa qalaad oo ay Soomaaliya ka gurato ka hor istaagi lahaa oo halkaa run ahaantii culays dhaqaale oo mug leh uu soo food saari lahaa. ka sokow intaas iyadoo arrinkaasu ku keeni lahaa culays dhanka arrimaha gudaha ee Itoobiya oo arrinkaasu keeni lahaa dhacdooyin iyo howlo ay ka mid yihiin gadood ka dhaca qowmiyadda Oromada oo qowmiyadda sida tooska iyo sida dadbanba uga faa'iida qaadka Soomaaliya lagu soo guray. run ahaantii labada arrimood ee tilmaaman oo qaadka ka hortagiisa iyo xayiraadda iyo cunaqabataynta diyaaradaha u sii socda gaar ahaan diyaaradaha Ethiopian Airlines ee u sii socda bannaanka Itoobiya iyo kuwa ku soo socdaba in iyagana sidoo kale hawada Soomaaliya laga xidhan lahaa. arrinkaasuna uu khasaaro saan tilmaamay dhan kastaba keeni lahaa oo noqon lahaa arrin culays weyn saara run ahaantii dowladda Itoobiya oo tallaabooyinka guracan ay wadaa
ay rabto inay ku qaybiso ciidda Soomaaliyeed, faragelintana ku hayso aw iskuna dayeyso inay dhulka Soomaaliyeed ku dhiibsato oo xeeb Soomaaliyeed meeshay noqotoba ha noqotee ka hesho iyadoo adeegsanaysa siyaasad iyo cududba uu noqon lahaayeen arrimahaasu kuwa ay kaga waantoodo run ahaantii oo cashar ugu filan oo arrinkaasu geli kari lahaa loo baahan yahay kaadhadhkaas iyaga ah ee tilmaaman in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xilliga ugu habboon dardar geliso kana dhabayso kuwaasoo run ahaantii midhahooda la arki lahaa oo micnihii wax ku ool noqon lahaa oo dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya run ahaantii culays weyn ka qaadi lahaa miisaan weynna u yeeli lahaa saas awgeedee tahay in kaadhadhkaas iyaga ah la dardargeliyo la darso loo gudagalo ahamiyadda iyo istiraatiijiyadda loo abuuri kara ee yeelan kara daawada dhegayste waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf intaan barnaamij kale ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu